halow walaalahayga sharafta badan ee ku xidhan janaalka sahanwade janaalka dadweynaha Soomaaliyeed maanta waxaan idiin soo gudbinayaa dhacdo aad iyo aad u naxdin badan oo ka mid ah dhacdooyinka caalamka laga yaabay laba wiil oo walaalo ah oo u dhashay dalkaasi Pakistan kuna dhashay caasimadda waddankaasi ee Islamabad ayaa caalamku ka yaabay mucjisada ay wataan carruurtani ayaa waxay tahay inay ku shaqeynayaan qoraxda sida soolarka oo kale labada wiil oo ah kuwa mataana ah ayaa waxaa lagu magac daray Solar Boys oo af Soomaali ahaan noqonaysa wiilashii qoraxda mana awoodaan inay guriga ka baxaan iyadoo aysan jirin wax qorax ah ama cadceed haddii kale laamiga ayaa baabuurtu ku maraysa oo ma awoodaan inay socdaan labadan wiil ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Shucayb oo ah 13 jir iyo Cabdul Rashiid oo 9 jir ah labada wiil ayaa miirkoodu ama caafimaadkoodu ku xiran yahay inta qoraxdu soo jeedo balse haddii qoraxdu dhacdo ama ay habeen noqoto ma ahan kuwa soconaya oo caafimaadkooda qaba ee waa kuwa baralaatis ah ama curyaamiin ah waana kuwa suuxa inta habeenka lagu guda jiro oo dhan markay qoraxdu soo baxdana waa kuwa ay noloshoodu u bilaabato oo soconaya waa ilaahay maqaadiirtiis wiilashan loogu magac daray Solar Boys ayaa xaaladooda caafimaad dhaqaatiirta dalkaasi Pakistan ay ku wareersan yihiin iyagoo maalintii caadiya habeenkiina xaalad xun galaya oo xitaa aan hadli karin dhaqdhaqaaq iska daayay dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan xaaladda noocan oo kale aysan horay u arag waxayna noqon kartaa mid hidde ah ama genetic si walba ay ahaato dhaqaatiirtu ma hubaan nooca uu yahay genetigan waana dhacdo dad badan ay la yaabeen qoyska labadan wiil ayaa waxaa kaloo ay dhaleen gabar la dhalatay labadan wiil balse aanan qabin xanuunkan kaliya waa ragga qoyskan ka soo jeeda horeyna waxaa uga dhimatay laba kale oo isla sidaan ah dhaqaatiirta wiilashan ayaa guriga labadan wiil waxay ka soo qaadeen ciid iyo dhirta ka baxday gurigaas sidoo kale waxay ka qaadeen labadan wiil dhiig waxayna u direen dibadda si dhaqaatiirta caalamka oo idil u baaraan arrintan labadan wiil ayaa suga inta qoraxdu ka soo baxayso si ay u socdaan dadkana u dhex galaan ilaa inta qoraxdu ka dhacayso qoraxdu markay dhacdana halkaas ayay noloshoodu ku eg tahay mana aha kuwa awooda wixii xilligaa ka dambeeyay inay nolosha sii wataan ama dadka dhex galaan aabbaha dhalay labadan wiil ayaa waxaa lagu magacaabaa Shucayb Axmed waana Pakistaani Muslim ah waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan walaalkay qaaliga ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir janaalkeena si aad ula socoto dhacdooyinka caalamka taariikhyada iyo arrimo kale badan rukumo oo subscribe saar oo walaalkiisa ka cabdi yaasiin mahadsanid